الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقانك حسبك حمناها قولها وسيرها مشارحين تا كلياش الديقان كيه يأفرت الدقمو يصلح القبول دمان مدن تا يمرت شاف تكلمشن فريدة قابتن فريدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka koobaad runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaad tihiin musharaxiin annaga laftigeegu waxaanu ahayn saddexdii bilood ee ugu dambeeyey musharaxiin baanu ahayn maanta waxaan rajaynayaa inaanu taagannahay stagekii koobaad waxaana aan ku niyad samahay anigoo halkan jecel inaan uga mahad celiyo guddoomiyihii guddida xisbiga u xil saaray kala saarista saddexdaa gobol oo halkan ila fadhiya saajin inay maanta sharaf noo tahay isjiid badan iyo isu tanaasul badan iyo shaqo badanba maanta inaynu finalkii taagannahay waxaan ku niyad samahay insha allah hadduu alla ka dhigo saddexdaa gobol ee galbeedka inaynu heli doonno majority-ga amba absolute majority-ga ugu badan ee aynu rajaynayno insha allah hadduu alla ka dhigo waxaanu in badan la tixgeliyey qodobo fara badan aan ku qiimeynaynay qofka la qaadanayo waxaa jiray guddida kala saarista guddida mustambeedka iyo hoggaanka sare oo xisbiga oo dhammaantood dhinac kasta waa laga eegayey waxaan anigu runtii isleeyahay ilaa 2002 2003 2005 2010 2012 oo aan markaa xil hayo iyo 2017 campaign baan ku jiray campaign-ku marka la qaadayo wuxuu u baahan yahay waxyaabo fara badan oo qiimeynteeda leh waxaan ku kalsoonahay maanta dhammaantiin idin ducayn maayo laakiin waxaan ku kalsoonahay dhammaantiin inaad soo marteen intii ugu badnayd kriteeriyadkii qof musharaxi uu mari lahaa marka aad iyo aad baan idinku soo dhaweynayaa waanan idinku hambalyeynaya inaad halkan timaadaan insha allahu waa inaynu guulaysan doonaa haddii aan ku noqdo structureka xisbiga iyo xisbigu qaab dhismeedkiisa waxaa igaga horreeyey cabdikariim waad ogtihiinoo 2012 markii ururada la furay ilaa iyo maanta xisbiga waxa uu qabsoomay 2 shirweyne iyo 3 shir oo kala dhaxaa xisbiyadan maanta la tartamayno waliba gaar ahaan xisbiga wadani wali ma qabsanin shirweyne 8 sanadood uu jiray waxa uu suurta galay 3 jeer oo uu isugu yeeray shirkiisa golaha dhexe taas waxay noo muujinaysaa xisbigan inuu gaamuray maanta inuu taagan yahay stage uu hogaamin karo 5 sano soo socdana dalka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu noqon doono 5 soo socday 5 ka dambeysay 5 ka sii dambeysaba inaynu hogaamin doono waxaan qirayaa xisbigani marka hore bahweyn buu ahaa bahweynta uu xisbigani ahaa gobolada galbeedka wuxuu ugu xoog roonaa gobolka Maroodijeex labada gobol ee saaxil iyo awdal doorashooyinkii hore marka laga reebo doorashadii dhaweyd ee madaxtooyada waa laga xoog roonaa laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa gobolka awdal iyo saaxil iyo Maroodijeexba saan hore u inaynu mar labaad ku guulaysan doono insha Allah haddii alla ka dhigo waxaan doonayaa inta badan waad ogtihiin maanta dhammaantiin platformka siyaasiga soo fuusheen siyaasaduna inta badan waxay ku salaysan tahay waa constructive dhibaatada in haysata waxa weeyaan waliba dhibaato xagga mucaaradka ay naga timaada mucaaridmo waxa la yiraahdaa imika ma jiraan laakiin waxa jira waxa la yiraahdaa reaction waxaan uga jeedaa xukuumaddu waxay leedahay barnaamij waxay leedahay qorshe 5 sanadood institution aan lahayn ma jiro sababtoo xeerka maamul wanaagga ay nafaraya waxa jira qorshe sanadeed waxa jira barnaamijkii xisbiga ee 5 sanadooda
markaynu doonayno inaynu noqono mucaarid constructive ah goobahaasaa la baadhbaadha laakiin maaha mucaaridnimadu inan baa la xidhay gurigeygaynu tegaynaa booliskaynu soo caayaynaa boolisku waa institution ka tirsan qaranka institution qaranka ka tirsan oo xeer leh oo nidaam leh waxa dhacaya dhacdo yaroo kale waa la istaagaya marka runtii aan waxaan leeyahay aynu hagno mucaaridkana aynu waxbarno aanu nidhaahno waxaygu waa bayaal waxaanu haynaa barnaamijkii xisbigaa yaalla qorshihii qaranka labaad baa yaalla institution kasta oo qarankani wuxuu leeyahay 5 years strategic plan buu leeyahay waxaa jira qorsa sanadeed aynu isku macaaridno aynu isku maxaafidno waxa inoo qabsoomay anigu waxaan ku rajo weynahay oon aad iyo aad ugu rajo weynahay taasaa noqonaysa mucaaridnimada dhabta ah laakiin haddaynu wixii wanaag ah ee inoo kordhay aynu mucaaridno ogow ninka mucaaridkii waa muwaadin ninka mucaaridkii waa cashuur bixiye waxay xukuumaddu ku shaqaysaana waa cashuurta adiga lagaa qaado adigoo mucaarid ah cashuurtaad bixiso ay xukuumaddu ku shaqaysaa marka runtii waxaan ku waanin lahaa qoladayna mucaaridka ah ee inta badan miidiyaha la taagan qof la xidhay oo institution maraya xukuumaddu way xukuumadda marka la eego qodobka 123aad iyo qodobka 124aad ee dastuurka qaranka ciidanku qaab dhismeed buu leeyahay mandate-na uu leeyahay ninka mas'uulkii ciidanka kama mas'uulaha ciidanku mandate qaranka u siman buu leeyahay marka waxaan jecelahay in badan waxaynu arkaynaa ama institution qaran ama ciidamadii qaranka oo inta badan la wajaafaynayo waxaan isleeyahay waynu ugu nasiib badannahay maanta waxaad ogtihiin wadamada inala jaarka ah marka laga reebo Djibouti waxaad ogtihiin xaaladaha siyaasadeed ay ku jiraan alxamdulillah ninkii mucaaridka maanta wuxuu haystaa platform aan cidi ku dhibaynin cidi ku dhibaataynaynin ku tartami karo barnaamijkiisa uu ku soo bandhigi karo lagu dooran karo laakiin aad iyo aad baan u aaminsanahay in nasiib xumo tahay in maalin kasta dhacdo yar oo institution khusaysa lagu masaalo xukuumaddan iyo barnaamijka horumarineed inoo socda waxaan anigu isleeyahay oon ku raacsan cabdikariin qof kastaaba hadduu iminka 10 sannadood dib u celiyo meel kasta oo Soomaaliland ka tirsan amba institution kasta oo Soomaaliland ka tirsan amba wasaarad kasta runtii waxaa dareemaysaa inaynu horumar ka samaynay waxaynu nahay dalka keliya ee maanta caalamka jira in deyn lagu lahayn deeq la siyaana iska kooban tahay haddana 5 sannadood ee ugu dambeeyey amba 3 sannadood iyo barkii waxaynu taagannahay inaan inflation wax la yidhaahda amba sixir barar deflation iyo inflation labada midna aynu kuma dhicin xukuumadda waa ilaalisay waxaa kaloo wax laga qabtay xaggii shaqada boqolkiiba 22 ayaa shaqaalihii dowladdu koreen sababtaa dowladda waxyaabaha marka laga hadlayo macroeconomiga loo doorto waxaa ka mid ah kow inay wax ka qabato unemployment shaqo la'aanta waxaa number 2 ya inay wax ka qabato waxaa loo yaqaano poverty-ga ama faqrinimada waxaa qayb ka ah in waxay ka qabato inflationka deflationka waxaa kaloo muhiim ah inay wax ka qabato waxyaabaha loo yaqaano importka iyo exportka sababtoo ah dalku markuu wax soo saar sameeyo waxaa yaraanaysa hard currency-gii amba ku tiirsanaanteen ku tiirsanaanayna lacag dabadeed marka alxamdulillah waxaan isleeyahay horumar fiican baanu gaadhnay rag la doonayo halkaa inay ka sii qaadaanna waa hablaha iyo wiilasha iyo qoorweynta halkan fadhida waxaan ilaahay ka rajaynaynaa guul la mid ah inagoo boqolkiiba 70 ama boqolkiiba 50 soo guulaysanay inaan halkan isku soo noqon doono bacda may 31 inta badan Soomaaliland waa maalin u gaar ah may waxay ahayd maalintii Hargeysa la soo galay 1988 marka runtii waxaan isleeyahay maalintaasina waa maalin guul inoogu suntan waxaan rajaynaynaa inaynu wada guulaysano dhammaanteanba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa idku mahadcelinayaa